oo fadarowday oo faraha ka baxday oo meel walba maraysaana waad ku kharibanteen oo aad baad ku kharibanteen qarsigii iyo wixii aad qarinayseen maama Soomaalida waxay ahayd horta jir wax weydii gadaasha jir wax u sheeg mugta waa bama marka hadda iidaan horteena jirtay wax ka wareysanayna iid wax kasta noo faa'iideeyay midna Soomaaliyeed isku badnaada midda kale waxa sameeysan rabbigiina isku dhiiba rabbigiina tala saarta nimaantu wuxuu ku sheegay malaha maanta nim wuxuu kala maqin Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magacayga waa Ismaaciil Xasan Cabdi YouTube ka daawanaysan Ismaaciil Time TV fadlan hadaad nagu cusubto waxa ka codsanayna YouTube kana subscribe noo saarto hadaad horna la joogteen aad ay kaaga mahad celinayna la joogaaga ku soo dhawaada muuqaal cusub arsugabal intaana muuqaalka aan ku soo dhawaanin score ayaa la jibiyay run ahaantii waxa waaye laba maalin gudahood ay waxaan ku gaarnay 900 qofood laba maalin gudahood run ahaantii aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa asxaabta cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada intaas kadib muuqaalkii saacadaha ka hor macna aan soo gelin saacadihii u dambeeyay oo ku saabsanaa walaasheena Queen Canab ayaa waxa ka soo hadlay Mama Malyuun saawada taqaanaanba marka waxaan rabnaa muuqaalkaas in aan ka wada bixino reaction aan isla daawano Mama Malyuun waxa waa taraysay walaasheena Queen Canab waxaan leenahay adigana waxa waaye walaasheena macaan waxa waaye waa gacan ka xaq darna si xun ku gashay waxaan leenahay adduun iyo aakhiro waxa waaye ilaahay aabtaada ha asturo midda kale waxaan rabnaa muuqaalkaas in aan isla daawano oo soo duubtay Mama Malyuun sida caadana oo intaan muuqaalka bilaabin like-ta waa codsi subscribe-kuna waa dhiirigelin wixii afkaarna xagga hoos inoo wareebo ku soo dhawaad muuqaalkeena faahfaahsan muuqaalku waa kana isla daawano بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد حسبنا الله ما شاء الله ما شاء الله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله ربي لا اشرك به شيئا شر ما انت الله ما قال ما انت waxay ka shidan tahay ma anta ee ka shidan tahay queen kulli ma wada queen ba queen biskan waxa weeye horta gabdhaha Soomaaliyeed oo fal badan iyo fara badan iyo sir badan iyo war badan horta baa laga kaaya horta ma sha Allah maamada waxa waaye sida hor ma ahan waxyaabo hore lagu bartay waxaan leenahay ma sha Allah saddex mar maanta waxay wadaa talo ee tala siinaysa Queen Canab ee tala sii doonta marka maamadan waa fani muuqaalku xeeran ka soo arkay marka muuqaalkan aad u dheeriya waa 12 daqiiqo marka fiirsanayna afkaarteen iyo ra'yigeena ka dhiibanayna wixii waanane xagga dambe ka dhigaynaa insha Allah aaladan technology-ga oo fadarowday oo faraha ka baxday oo meel walba maraysaana waad ku kharibanteen oo aad baad ku kharibanteen qarsigii iyo wixii aad qarinayseenna waa dhamaata way dhacdaa ma barteen way dhacday wiilkaaga oo noqday LGBTQ haduu noqdo way dhacdaa gabadhaada oo noqotay hadii la karo way dhacdaa na adigoo fara laga hayo hadii lagu karo way dhacdaa na adigoo qaawan hadii lagu karo way dhacdaa na way dhacdaa ilaa aad barataan horta waxba idin qarsoonayn horna dadku ama waxbay qarsadaan oo waxba qarsoono ayaga marka hore nooda yaqaan faala warbaatin horta nooda ma taqaaniin qarskan koobkaad ku jibiseen muuqaalka wuxuu noo socdaa 1 daqiiqo iyo 28 second ما شاء الله maamada waxa waaye waana ku soo gashay iyo dhiirigelin iyo maxay gabdhihiina la hadasho muuqaalkii saacadaha ka hor aan soo gelinay walaalkeena Munsar soo diyaariyay nimankii ka dhaxadlay codka laga duubay soo hadlay waa wada aragteen waa nin inaba aan caadi ahayn nolosha ka dhacay maanta muusan jeclaan qof walaashiisa in lagu sameeyo waxa soo kale marka astaamuhu sheegayeen waxyaabuhu sheegayeen waan aragnay mise waan maqalnay wuxuu dhahay hadaarabtid gabar hadaarabtid garoob marka waxa xataa afka aan soo qabanayno sheegay marka maamada warkeed aan ku sii socono gabdhaha Soomaaliyeed waxa leenahay xilli walba is ilaaliya waqti walba is ilaaliya ilaahay nila jiro laakiin idinkana dadaala qofka maanta nolosha ama sameeyna aashu kaansanaysan
iska tijaabiya waxaa tihiin anu waa idin aqaanaa aye shalay markaan idin lahaa warsaacan inaan idin baro casharadaas muhiimka ah baan diyaar u ahaa geesiyad baan ahay sugta anoo la iwadoo qaawan haddii suuqa lay keeno kelmadda i hortaalo way dhacdaa baa la dhahaa wax kale ma jirto aniga ma ahayn been baan sheegay naa wiilkayga haddaan keeno iyo gabadhayda haddaan keeno iyo walaalkay haddaan keeno iyo ina adeerkay haddaan keeno oo waxooda qaldan keeno way isku bedelayaano waxbaa ku hagaagaya waqarisna waxba kuma hagaagaan inaad keligaa kuu qarsoonta aad u qabtaa wax kuu qarsoon ma jiro hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranine afka hadduu ka soo baxo arka qaadna weeyaan hadalku ammaan wuxuu yahay intuu adiga kugu jiro afkaaga wuxuuna waxay ammaan yihiin marka aadan samaynin adigu samee gacantaada ku hayso laakiin somebody else baa kula sameeyey waa kuu qarsoonaanayaan ha u fadhiinina laakiin kuwan canabi waa su-aale muslim maxay iska xiri weyda aabad qaawanaatide walaa ku soco waxbaa lagu qabsaday waxaa hoos u dhigtay waa maasha Allah waxaa waaye waa la dareemi karaa bal waa ku sii soco bal qofkii muuqaalka arkaa ka sheekay karo ani muuqaalka maanan arkin bal waa ku soconeena muuqaalka hadda halkaan aan ku fiirsanaa waxyaabay ku qabsateen oo xal iska dareemi karaa ku soco bal fartan bari aye baashaan way ka badan tahay kow ma waadan ogeyn fartan bari baasha in la iska xiro day kugu gaartay inay dambi tahay ilmaba ka taabatay intiina badan diintana waxa kama taqaanaan reer qalo qabiil baa yaa yiri qabiil baa ka yiri qabiil maxaa ka ogtiin hoostiina baa dayacana yaa maryoole rag iyo dumarba soo fadhiisto runta qofka sheega rabbi baa jecel aadanuhuna wuu jeclaadaa marka halkan waxaan ka faahfaahinaya ama ka sheegaya gabdhaha Soomaaliyeed sida qariban oo ilbaxeen inaad iska daysaan sida qariban anigu I don't know wax adinkoo qaawan muddaad jaba halaala maxaan u yaqaan qadaa qasan waayay masaa ku qarinaya ha ka suulina ku qariyo Fred dali way ki jaba keenay so why so adigu hadaada nooda aqoonin ma asaga nooda aqoonaya no mid buu sheegaya in adeer uu soo dir buu leeyahay waqtiga ay soo dirtay jacayl buu leeyahay una u diraya jacaylkana ma taqaanaan jacaylku goormuu yimaada waxaan idin jeclaan barnaamij korta hal qof kuma socdo kuwiin caalam kuma socdo waxa waaye wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ku socdaa waxa waa kulligiina soo fadhiista diinta wax kama taqaaniin ayaana la dhahay marka aan ka wada dhageysano maama Malyuun waxa noo wado hadaanan diinta wax ka kaseenin ana u faa'iideyso maama Soomaaliyeed waxa ahayd horta jir wax weydii gadaasha jir wax u sheeg mugta waa maama marka hadda iidaan horteena jirtay wax ka wareysanayna iida wax kasta noo faa'iideynayso wixii xun iyo wixii saxan iidaan ka sugeena marka saad u wada jeedna hadalkeeda waxa waaye hal qof ma taagayso dadka oo dhan beel hadlaysa wiilasheena Soomaaliyeed iyo gabdhaheena Soomaaliyeed marka aan ku sii socono muuqaalkeena waxa muuqaalkan aad u dheer yahay oo la fiirsanayna waanadeedna meesha ku dambeysana oo arkeena maanta ku arkaa waa ku jecel yahay afka jacaylkaaga jeclaaba idin easy ah kow jahanabaduna easy way idin tahay jeclaaba easy idin tahay waa inaad runta barataan laakiin anaga Soomaaliyeed sida iskaalno xeebta isku soo gureysaan waa ujeedaa qofkii u baahan kuwiin canab iyo soo dirsaaniga kuwiin canab ay tiri ayadoo daaman liimaale oo hoosta madow yaa afay ayay xaku tima xaku madow xaku dhacay xaku helay xabaalaha badii xaku dhacay haysaga jir way sabaasha haysaga السقبل ماما سك حويان شوف ترتيب اسلوب له كود شوتي danteeda taqaanay barnaamijyada sidii abxad u soo gasheen idinkoon horey u adkaysanin haba sida habqankii tawaad jirantihiin depression aad qabtaan anxiety aad qabtaan bipolar aad qabtaan maqaanaayta panic attack aad qabtaan haddana saaxiib lama tiidin anigu waan qabaa depression baan qabaa anxiety aan qabaa oo panic baan qabaa laakiin saaxiib baan la aha I know inuu jiro I know inaan daawo u qaadatay qaarkood baanaga daawo ma qaadan laakiin ana iska daaweeyey laakiin depressionka iyo anxiety yaa daawo u qaadan jiray waaga hore hadda ma qaataan no because waa ogahay wax alaal wuxuu ku kaco waa ogahay wax alaal wuxuu ku damo waa ogahay wax alaal wax keena waa ogahay wax alaal wax la isaga bixin karo ana hoggaanka isku haya saaxiib baan la aha saaxiibkaas is wax xiritaan waa adagtaa laakiin adowgaaga is
إلهي كو قري عذرك ألا قري شيء وقفا لا صاحب HIV هدوك وضع لا صاحب كانسر هدوك وضع لا صاحب كوفيد-19 هدوك وضع لا صاحب هرقب هدوك وضع لا صاحب هدو ديبرشن وضع لا صاحب عذر كستوك وضع لا صاحب أجرسف هدان نقط أجرسف وكون غرية أنرجي هدوك وضع لا صاحب وأنا كوفلا أدي واحد فاهمس وحنون أكوي ماذا وأنا صاحبة عادي يا سحر هدوك وي ماذا لا صاحب كو قرآن آخر أكتاد بقرة ديو أكتاد قرآن ديو أكتاد أخرسو ويسيستك إلهي بري لا صاحب هذا وجي وكون قرية مرة دمبي قاس هدوك وضع لا صاحب واحد داوية آير سيد داوي آير وسمين واحد كان إسك إلهي حنون كستوك وقبت لا صاحب dhibaato kastoo kugu timaada la saaxiib ninku hadduu kugu xumaado la saaxiib naagta haday kugu xumaado la saaxiib cunuga hadduu kugu xumaado la saaxiib saaxiib hadduu kaa dida banaanka ka maray ada ayaa kugu tagay soo waxaa idinka khaldan waxa weeyaan waxbaa qarinaysiin waxbaa idiin qarsoon balaayaad walaaqaysiin waxbaa idiin taagan waxa weeyaan waa macnaha maamada hadalkeeda waxaan u fahnay wax walba maanta noloshaada kusoo wajahan haddii ay kugu dhacaan waxa waaye la saaxiib معناه ده واحد هذا دو صاحبك كوجو لا صاحب هذا معناه محايدو أولاد أدا دشدي كوجو لا صاحب عذر دو كوجو لا صاحب مركو حواي ومعناها أستان فضض واحد كستأذو كحل كرت لكن هدي ما أنت صاحبك أسكو دعدان أو معناه عدامي وحاسك الحسان هذا سامرين دهين محايدو بيساس آذان دهين هذا حوا حيابي سرد إشي يسكل وفافينا برا بلوشة دقة لكن هذا أسيق الله صاحبته oo maxay waxyaabo oo ka hayna macnaha inta ka gungaaraysa ka tirtiraysid la saaxiibo oo macnaha u carab laad maqli jiray bogta kaadi bono loogu galbadiya ay dhahdeen Soomaaliyeed ma mahday marka maamadu waxay leedahay wax walba maanta noloshaada ku soo wajahan oo kugu dhaco la saaxiib waxa waana mid u dambeysay waa haba ka hor imaanada sadkeenin ba adiga ma fahamti marka maamada wahanadeeda aan qaadano wiil iyo gabarba iska ilaalisan waxa idinku taagan قرادات وأنا أسكت على لسان هديك كله ولقى إيه الله وأمليه يسا فوسطه أسكت دوا شاطئ دوا سؤال لما نسا هذا وقتنا كمين حنا بيلا بحضر أيضا دام وين بأفر إيه لوقتك ساعة تفتح كشلنتها أيضا وقاون ومريا قعنا المعاسي كشلنتها هلو متى كله ما إسقاون يسين سو ما أقدر رجعت ذيك الصوم أنا لسه بحنين هذا إسقاون يسين رجعت ذيك الصوم حيل كسارة تبع الروتاي موقت رجعت ذيك الصوم marka inta kaliya ma reebatan soo markii hore inaa u badnayn xirtaan shaqada waa laga yaabaa iska xirtaan laakiin majority naagaha Soomaalida kastuma ma xirtaan hore la igu sheegay gaar Kenya xataa mar ay sheegay majority-gina waa iska kastuma isaga bixisaan yaraantaada inta gas laga qabto laga ma siin jirin soo qasta dukaan hadaan ducaan hotelka hoos fariisto Soomaaliya ma bixi karo way baqaawanahay sida isugu noqdo oo waaqdiina dadkii faraha ka ahayay markuu waaqdaada maqal sida suuqa kaaga saaro faankeeda qabanaya aad marka kuween arab maxaa maanta ku taa ma way dhacdaa habad haysa miswaa kuman keebad samayn tiktok soo fariiso awal baa waaqlaan jid adoo daaman liima ale ya laakiin wajiga uu buuran yahay ma iska baanta wajiga waa qarxsan yahay waa buuran yahay inta kale xataa ka tahay wajiga iyo bas inta ka nooshay meel kale kama nooli labaad ka nooshaa صدقني وابوف وجهنا وابوف حكوش يا محمد الله كان واركا يا لكن واحد سميسا يا واحد سميسا ويد عدادي تتوقع سفر السن أنا قاوم سليم كأنها ويد عدا نينك كوكياني أذو قاون وأتقنا إلى نينك كدوين يقف كدوين أذو درتين أذو مسؤول ما قال ماذا كتشي قف كدو درتين وأتقنا مصور كيس يمجع عيسى ببرها بالشبكين why not بس أذو قاون بكوكياني سما أسجنا هل أوجاد يا داد كبر كستنينك قوي برها بالشبكة صور كساكنت كان ريب على برها سنو الأوجانية because government alti طريق ما كفر مية ولا شيء سوى الوضع لكن ياسنا هو يدي سوى الوضع لكن ياسنا واسكو قري سابان كوري marka kuween arab waxaan u sheegayaa way dhaxdaana la soo fariiso ninka aad u dirtayna sawirkiisa iyo magaciisa baraha bulshada soo saar dadka laga barto
jid baa ku dhamaanaya markaas meeshu aadi lahaa dhalaha isku xiro dhalo ha isku xiro intiina kale oo cayrinaysa oo qaylinaysan hooyooyinkiina iyo eedooyinkiina iyo gabdhihiina iyo naagihiinaba ayagoo wada qaawan baa lahayahay gabdhaha qaylada ka daayeen rag baa bariyey rag baa qaawi والله horta run ahaantii waxaan waa wax lala yaabo maanta aniga gabar aan la sheekaysan ama saaxukansana inaan qaawiyo oo aan macnaha ii soo dir sawirkeeda aan dhaw waxa aan ka faa'iidayaa iska yarba laakiin nimanka sidaas sameeyna waa niman aanan macnaha iimaan lahaynba waa niman iimaan lahayn maamada sidii sheegayso kuwin canab waxay dhahday soo fadhiiso TikTok-gaaga way dhacdaa dheh kadibna nimankii saan ku yeelay ninkii saan ku yeelay de soo dhig baraha bulshada soo dhig ha la wada arko ha la iska ilaaliyo ومعناها تلا أدي أدو في عن أنا هنتي مركان كهذا لكن معناها دي مستوى شبه إسكت هذا حوار وحالة ليه هي أمي وحياة كده إجران لكن قفل دنتيس أسايا قانو عدد مقاطع داوني دنت الأداء قانو وحي كورن أداء تقاند نقف هذا ما دنتيس لو شيء ملها عنق هذا ما تجرى لحظة السنة جرو مثل تضبط السنة جرو دنتيس وكأوجيه maanta wuxuu interest ugu jiro ma sameeynayo marka waxa leenahay gabdheena Soomaaliyeed wax idin run waa taqaaniin sameeyo maamadan waxa waa idin siisay taladana qaata ama iska dhaafa wiilasha Soomaaliyeed waa la hadlay gabdhaha waxa ka dhaafa gabadha kugu adkaysa ka tag walaal xog ku lahayn maalin dhaxaasna maalin waxa ku iimaanayso ama maxay baraha bulshada la soo dhigi doona walaashaada saas lagu sameeyay adiga marka walaasha waxa la jeclaan walaashaada la jeclaan waxa nafsadaad aad la jeclaan de qofka nafsadiisa kala la jeclaanin marka maamada ku sii socona bal hadalkeeda qalba soo saara gabdhuhu ma xumay beerbaas bay leeyihiin marka wax la weydiiyo aniga wax diidi kartaa iska siinaysa walaal imaani dadqadare abliyo fiicane walaal jaladii jalana kuma intuu dhaho bay xaq u siinaysa markaas waxaan goynayaa tayaa isku kalsoonaada oo isku tashada bisantana iska xiira afartan bari haday gaarto waa dambi iska xiira bisanta idiyaan iska jara idiyaan shaqaan ka harsada bisantana ma wanaagsana bisantana afartan bari idin ku dhaafin idiyaan iska jara mar walba kugu soo baxan idiyaaga ibar ka dhig idiya feega isku xira shaqaan ku idiyaa sadee kuwina la baxa shaqaan ku idiyaa sadee waro ilaahay ku xirnaada oo runbiga ka baqa oo runta barta oo beenta iska daayay oo ceebteena banaanka saa u taalay ceebta haday kugu dhacday astur ya way dhacdaa hala soo fariiso way dhacdaa indha adag laga qaadiya kuwin qaawan oo kale sida Frida noqda sida kuwin qaawan Frida oo tahay maaragtay ya ayadoo yar baa la soo dulmay waxa la leeyahay ka dhaxda ma jirto halkaas waxay doonto mar jahanama la baxda mar jixiima la baxda marna kuwin qaawan la baxda marna waxay la dhuqdaa cid ay u joojiso malaha hadii la bariyo la dhooraale ahaw wixii kugu dhacay waa ka xunnahay raali ahaw waa lagu qaldamay waan ogahay inay intay daraacin qaadanayso wadeerada anaa saar samaysataan oo calooshaad goysaan oo baridaad samaysataan oo waa wada qarsataan oo mariyaa ku dadaan ayadoo si intay lacagta ka bixisay banaanka la soo fariistaan dulmiga iyo cayda iyo dhibaatada intay iska daysaan waxa wax xaribana waa dumarka kulligiina ceebtiina banaanka taala wax idin qarsoon waa yiriin majority-giina ka yaaba ilaahay TikTok waa ku waalateen Instagram waa ku waalateen Facebook iyo YouTube waa ku waalateen Clubhouse waa ku waalateen Snapchat meel kasta oo aalada waa ku waalateen si xun baad u ilbaxdaa meesha tagtaan luqadda ku bedelataan ya galaadi baa waxaan ku soo arkay dhalinyaro yar oo inta ka tagtay galaadi oo jijiga tagtay ku haysan arka qormada luqadooda bedelatay ilaa ay abaabku waagan dhuusha waa soconayay luqadeedana waa kana riimidu ma asalan ahayn luqadda gaalkacyo looga hadlay galaadaan ku hadlaay maxaa luqadooda bedeli waay because anigu ma ii follower anigu leader baan ahaa mana ogolay qofna luqadiisa intaan qaatayda aan ka tago no wayb kalbeed baan ku bedelan lahaa anuu dugsiga high schoolka markaan tagay ya waan diiday inaan bedelo luqadayda waana maamuliyuna waana salaamayaa muuqaalkeena halkaas ku soo gabagabeynayna maamada waxa waaye talo tusaalo waana intii aan isku keen dartay talo tusaale waano saddexda shay baan isku ka dartay marka hal qofna meesan ataagaynin dadka oo dhan bay la hadlaysay wiilashii iyo gabdhihii way la hadlaysay marka waxaan leenahay gabdhihina Soomaaliyeed isku badnaada midda kale waxa sameeysan rabbigiina isku dhiiba rabbigiina tala saarta nimaantu wuxuu ku sheegay malaha maanta nin wuxuu kala maqan yahay oo ilaahay untumana adduunkan waa timid ku dhacay waxa ku qornaayeen markii ku jirtay uurka hooyada loo maxfuud wax lagu qoray
inaad guursanaysid inaadan guursan inaad dhimanaysid waxaasoo dhan wax qoran waa marka adiga waxaa lagaa doonaya dadaal inaad rabbiga ku xirnaato inaad maxay asturto ninna macnaasa ku aaminta inaad adkaato marka waxaan leenahay maamada 3 shayna siisay talo tusaale iyo waano marka intaasaan ugu filnaato waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad sharafteena tihiin is ilaaliya dadka waxa sameynayaan dad waxa waa iimaan lahayn waa run ahaantii waxa waa ninkaas markaa maanta codkiisa dhageystay ama meena saacadii ka hor muuqaalkaas soo dhigay YouTube markaa dhageystay run ahaantii naftirkeyga yaabay meena ninkaas waxa waa dadka meena wiilashiina ragni meena dadka ragga oo ciibayba meena waxa waxyaabo ka hadla daarad hatta waa yaabaysaa marka ana inta su'aana iga tahay waxaan iga tahay maxay dhiirigelin gabdhaha Soomaaliyeed waxa tii sharafteena mar walba sharafteena saa u ilaalin lahayd falkeeda gala muuqaalkiin halkaas ku soo gabagabeynayna sida caadada noo aad waxa way kunku xira ka dhiman kunkana gaarsiya waxaan kaga tagaynaa muuqaal caynkaan oo kale inta dib u kulmi doono sidaas iyo amaana